si ay nolosheeda oo dhan u baaba'do. Saaxiibkeed ayaa waxa uu wejiga kaga shubay acid. Assalaamu calaykum saaxiibayaal, isku soo noqod wanaagsan. waa anigoo ah Nadra Saciid. waan idinkaga mahad celinayaa sida quruxda badan laad iigu xidhan tihiin, markastana aad ii dhiirigelisaan. soo dhawaada. Kate waa gabadh model ah amase dharka xayeysiisa. Kate sidoo oo kale waxay ahayd gabadh soo baratay makeupka oo welibana makeupka u marin jirtay dumarka, markii dambena waxay noqotay dumarka dharka xayeysiiya. waxay ahayd gabadh caan ah oo welibana laga yaqaano magaalada ay joogtay iyo welibana deegaanada ku hareeraysan. gabadhan Kate la yiraahdo marba marka ka dambeysa waxay noqonaysay qof caan ah. 2006 ayaa waxay ka qayb gashay tartanka quruxda dhar xayeysiinta iyadoo welibana koob ka qaaday. 2006 ayay bilada ku guuleysatay Kate waxay ahayd qof marba marka ka dambeysa caan noqonaysay oo welibana rag badan ay ku fikirayeen in ay xiriir la sameeyaan gabadhan. Kate waxa ay ku noolayd London. Kate marka laga yimaado dhinaca xayeysiinta dharka iyo welibana qurxinta dumarka ee makeupka, waxa ay sidoo kalena ay shaqo ka heshay TV badan oo London ku yaala, taasoo welibana barnaamijyo u khaas ah oo looga bartay soo deyn jirtay, welibana dad badan ay jeclaayeen. Kate waxa ay noqotay gabadh caan ah, sidoo oo kalena waxa ay sii wadatay dhar xayeysiintii iyo welibana modelkii. waxa ay xiriir wadaageen oo xiriir u soo bandhigtay ninkan oo ay wada shaqayn jireen. waxa ay xiriir wadaageen muddo dhowr bilood ah, taasoo markii dambe xiriirkaas uu noqday mid fashilmay oo aan sii soconin. sababta xiriirka inuu go'aana waxa iska lahayd Kate oo welibana ninkan kamaysan helin. markasta waxay ahayd qof aan ninkan kuba kalsoonayn kuna qanacsanayn oo shaki badan ay ka qabtay. xiriirkoodu waxa uu noqday muddo kadib mid soo afjarma, laakiin marnaba kamuu samrin Kate inuu ilaawo gabadhan oo wuxuu doonayay inuu guursado amba uu nolol la wadaago, laakiin taasi may suuro gelin oo xiriirkoodiiba waa uu go'ay. marnaba muu noqonin mid ka samra gabadhan oo wuxuu ku fikiray markii dambe oo uu isku dayayba inuu ka aarsado ayuu rabaa oo uu nolosheeda iyo mustaqbalkeeda oo dhanba uu baabi'iyo. ma doonayay laakiin inuu dilo, laakiin wuxuu rabaa wejigeeda inuu kaga ciyaaro si aanu nin dambena u guursanin, hawshanay faraha kula jirtana ay dhammaanba uga baxdo, noqotana qof keligii noolo ah, murugo iyo welibana nolol xunna ay u dambayso, rajadeeduna sidaa ku lunto, noqotana mid dhammaanba nolosha ka dhacda oo marka dambena iyadu gacanteeda isku disho. waxa uu doonayay si aanu nin dambe ula hadal oo welibana aan gabadhan loo guursanin, sida oo kalena in ay dhammaanba iskaga baxdo social media ay ku jirto iyo welibana TV-gii ka shaqaynaysay, iskana joojiso gebi ahaanba shaqadeeda iyo welibana dhar xayeysiintii ay koob ka qaaday 2006. waxa uu doonayay dhammaanba nolosheeda inuu ku ciyaaro maadaama ay isaga diiday. waxa uu rabay inuu gabadha niyadda ka jabiyo. waxa dhacday maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa uu wacay amase uu qaraacay lana hadlay Kate isaga oo doonaya kuna leh waxaan rabaa in aan kulano amase aan is aragno. waxa uu ku belamiyay goob meherad ah oo internet cafe ah. waxa uu u sheegay inuu aad ugu baahan yahay oo welibana kala hadlayo arrimo shaqo, iyaduna may noqonin mid haba yaraatee in yaroo shakiya kasoo gala ninkan oo mabayba ka shakiyeen. may ahayn mid ninkan haba yaraatee ka filanaysa waxyaabaha qaar, sababtoo ah waa nin ay hore xidhiir u soo lahaayeen markii dambena ay kala tegeen. marnaba uma muujinin wax xumaan ah amase nacayb ah. waxa uu iska dhigi jiray markasta mid ku faraxsan iyada amase raalli ka ah oo welibana markastay wada hadlayaan waxa uu ula hadli jiray si wanaagsan, xitaa muu dareensiin jirin inuu ka xumaaday kala tegooda. iyaduna waabay aamintay ninkan oo way iskaga kalsoonayd, sababtoo ah wax xumaana kamay arag. laakiin ninkan sida ay mooday muu noqon, mana aha. wuxuu ahaa mid eeliya cadho qarsanaya. ugu dambayn Kate waa ay timi meheradii amase goobtii ay ku ballameen labadoodu, laakiin goobtaas markii ay Kate timi iyadoo waxbaba ogeyn oo daacad iska ah ayay weyday cid u timaada iyo cid soo qaraacdaba amba la soo hadashaa. in badan bay qaraacday laakiin telefoonkiisa lagamaba qabanayo. Kate waxay waqti badanba fadhido meheradii oo ay ninka ku sugaysay, waa uu u iman waayey. markii dambe waxay go'aansatay in ay kacdo oo ay iska tagto, mise bannaanka waxaaba joogayba oo ku sugayay nin kale oo wuxuu rabay isla markay sidaa u soo baxdaba inuu acid wejiga kaga shubo, wuuna kaga shubay. muuqaalkan waxaa duubtay kamarada qarsoon oo ku hor xidhnayd meheradaas ay gabadhu ka soo baxday. isla markiiba waxa uu iska dhigay qof la hadlaya, laakiin waxa uu ka gaadhsiiyey ICD oo uu ku shubay.
Kate waa ay naxday iyadoo dareemaysa gubasho iyo kulayl fara badan oo walibana wajigeedii iyo dhamaanba jirkeedu u gubtay. isla markiiba waxa ay ku carartay oo ay dib u gashay meheradii iyadoo biyo qabow daydayanaysa oo way u adkaysan kar weyday xanuunka faraha badan leh oo biyihiibay wajigeeda la gaadhay. laakiin nasiib xumo waxa ay weydiyey quruxdeedii iyo wajigeedii manaysan noqonin mid isdhiibta. isla markiiba waxa loogu yeeray ambalaaska oo waa la qaaday. waxa ay kooma ku jirtay 12 cisho. sida oo kale way indhabeeshay oo labadeedii il mid ka mid ah ayay weyday. saaxiibkeedii hore qorshahan ka dambeeyey iyo welibana kii kale ICD wajiga kaga shubay labadoodiiba xabsi daa'in ayaa lagu xukumay. run ahaantii gabadhani waxa ay gashay 32 qalin. wajigeeda waxa ku xirnaan jiray amase ay gashan jirtay caag 24 hourska ma iska saari jirin. nolosheedii oo dhan waxa uu noqday mid mugdi galay sida oo kalena dadka iska qarisaa. xanuun fara badanna la ildaran oo dhammaanba saameeyey jidhkeeda qaybtii hore wajiga ilaa iyo caloosheeda laabta sida oo kale. mar kasta waxa ay geli jirtay qaliin aad iyo aad u fara badan oo lagu soo celinayo wajigeedii. waxa ay noqotay gabadh run ahaantii qalbijab iyo niyadjab fara badani uu ku dhacay iyo welibana arag la'aan oo il keliyaata ayuunbay wax ku aragtaa. waxa ay ka hadhay dhammaanba dharxaysiintii iyo welibana modelkii. Kate sanado badan kadib waxa ay bilowday in ay noqoto qoraa oo welibana waxa ay qortay buugaag fara badan. qaar waxa ay ka hadlayeen nolosheeda iyo buugaag kale oo dhiirigelin ah. sidoo kale gabadhan wajiga ICD-ka lagaga shubay may noqonin mid nolosheedu burburtaa oo nin ayaa guursaday kuna qaatay wajigeedu sida uu yahay iyo welibana dhibaatadii soo gaadhay isagoo la qaybsanaya. waqti xaadirkan waxa ay leedahay 2 caruura. Kate waxaa jira dad fara badan oo aan u quuri karaynin qofka kale walaalkii nolosha uu ku jiro ka xun horumarkiisa oo welibana ku fikira in ay qofkan dilaan amase ay nolosha ka baabi'iyaan. waxaa jira dad fara badan oo maanta dhakhaatiir ahaa amase caan ahaa oo la sirxay. waxaa jira dad fara badan oo nolosha loo quuri waayey oo sidoonoo kalena lagu sameeyey. way dhacdaa oo markastana adduunka way ka dhacdaa. xitaa Soomaalida dhexdeeda way ka dhacdaa iyadoo ay u badan tahay. daawade haddii aad garanaysid qof qisadanoo kale ay ka dhacday amase ay adiga kugu dhacday fadlan commentiga nagula wadaag. dhammaantiinba ilaahay haynaga ilaaliyo laakiinse waa wax aad u xun inaad ku ciyaarto qof kale noloshiisa. qisadani waa mid cibri qaadasho ah amase wax ku qaadasho ah sababtoo ah iska ilaali inaad la saaxiibto dadka xunxun. ha soo dhawaysan marnaba saaxiib ka xun amba qof ka xun horumarkaaga iyo guushaada sababtoo ah beritoole wax kasta uu kugu samayn karaa ama way ka suurageli kartaa. daawade fadlan sheergaree qisadan si dad badan ay isaga ilaaliyaan qof kastoo xun. dhiirigelin ay ugu noqoto qisadan la wadaag saaxiibada adigoo u sheergaraynaya. sida oo kale ha ka ilaawin muuqaalkan in aad like saarto. haddii aad nala daawanaysay ilaa iyo dhammaadka muuqaalkan waa aad ku mahadsantay daawade. waxa idiin soo tabinaysay anigoo ah Nadra Saciid.